عشورتا مواطن بحي عشورتا مواطن بحي عشورتا بحي مواطن بحي عشورتا هوي هوي شاي هاي مواطن بحي عشورتا مواطن بحي عشورتا مواطن بحي عشورتا ma ogtahay muwaadin in miisaaniyadu tahay ku talagal ama odorosid dakhliga soo xaroon doona iyo kharashka dawladdu gali doonto sanadka soo socda ma ogtahay muwaadin in isha ugu muhiimsan ee dawladeenu dakhliga ka heshaa tahay cashuurta laga qaado dadweynaha Soomaaliland ku nool haddaba ma ogtahay in laga maalgeliyay cashuurtii laga qaaday mashaariic doora kaabayaasha wadooyinka xukuumadda Soomaaliland waxa miisaaniyada ay ka maalgelisay dhismaha jidka dheer ee Ceerigaabo oo 2 sano gudahood lagu guuleystay in la dhiso 190 kilomitir iyadoo xukuumaddii horena ay dhistay 94 kilomitir taasi oo wadarta guud ee dhisantay ka dhigaysa 185 kilomitir waxaana dhismaha cusub ee 190 kilomitir laga maalgeliyay miisaaniyada sanadkii 2018 iyo 2019 dhinaca biyaha dhismayaal iyo biyo xidheenno ayaa xukuumadda Soomaaliland u suuro gashay inay ka maalgeliso miisaaniyada dawladda waxaana la dhisay dhaamka Salaxley dhaamka Qool Dhuxulaale dhaamka deegaanka Dhadhaare ee degmada Allay Baday iyo ceelbiyood Riiga oo ku yaala wada Bariis waxa sidoo kale dayactir lagu sameeyay ceelbiyood ku yaala degmada Taleex kuwaas oo loogu talagalay inay biyo ku filan siiyaan dadka iyo xoolaha deegaanadaasi ku dhaqan dhinaca amniga iyo dhismaha ciidamada muwaadin ma ogtahay in xaddiga ugu badan ee miisaaniyada Soomaaliland ay ku baxdo ilaalinta amniga iyo dhismaha ciidamada kala duwan ee qaranka xukuumaddu waxa miisaaniyad badan ay ku bixisaa tababarka iyo kobcinta tirada iyo tayada ciidamada Soomaaliland si ay u sugaan amniga muwaadiniinta una difaacaan qarannimada ma ogtahay muwaadin in ku dhawaad 30% lagu bixiyay nabadgelyada guud iyo sidoo kale adeegyada waxbarashada biyaha deegaanka kaabayaasha dhaqaalaha iyo wax soo saarka beeraha dhismaha hoosada gaadiidka iyo dhismayaal kulliyada macallimiinta lagu kordhiyay ayaa sidoo kale laga maalgeliyay miisaaniyada qaranka ee sanadka 2019 lacagta cashuur bixiyayaasha waxa sidoo kale laga maalgeliyay gaadiidka ciidamada kala duwan sida militariga booliiska asluubta socdaalka ilaalada xeebaha sirdoonka iyo dabdamiska waxaa kaloo xukuumadda ay hirgelisay dhismaha cisbitaal weyn oo militariga u gaara kaas oo dhismihiisu ka socdo xerada Birjeex si loogu daryeelo caafimaadka ciidamada xukuumadda Soomaaliland waxay miisaaniyada 2019 ka maalgelisay mashaariic waxtar u leh dhalinyarada sida dhismayaasha garoomada iyo roogaga cagaaran oo la dhigay garoomada kubadda cagta ee Berbere iyo Burco oo lagu bixiyay lacagta cashuur bixiyayaasha sidoo kale mashruuca shaqo qaran waxa dhammaantii laga maalgeliyay miisaaniyada qaranka ee ka timid cashuur bixiyayaasha kaabayaasha kale ee laga maalgeliyay miisaaniyada waxa kamid ah jeelasha Gabil iyo Boorame oo ay socdaan wajiyadoodii labaad iyo kii saddexaad ilaa inta ay dhamaanayaan xukuumaddu ay u qoondaysay in lagu bixiyo lacagta cashuur bixiyayaasha ee miisaaniyada xukuumadda Soomaaliland waxay miisaaniyada qaranka ka maalgelisay mashruuc kor loogu qaadayo tayeynta caafimaadka iyo taranta xoolaha miisaaniyada loo qoondeeyay sanadka 2019 ayaa lagu maalgeliyay talaalo iyo seerayaal xoolaha loogu talagalay sidoo kale miisaaniyada qaranka waxa laga maalgeliyay mashaariic lagu ilaalinayo deegaanka waxaana kamid ah mashruuca joojinta dooxyada iyo mashruuca dhiraynta oo xukuumadda Soomaaliland ay ugu talagashay inay kula tacaasho nabaad guurka iyo isbeddelka cimilada waxaana kharashkooda laga bixiyay miisaaniyada guud ee dawladda ma ogtahay muwaadin in miisaaniyada dawladda laga maalgeliyay dhismayaal dawladeed oo cusub waxaana kamid ah dhismaha hay'adda maareynta masiibooyinka dhismaha gudida qandaraasyada iyo dhismayaal cusub oo wasaaradaha lagu kordhiyay iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha Cigaal International Airport oo wadooyinkiisa gudaha iyo qaybaha diyaaraduhu ay ka haadaan lagu kordhiyay runway cusub dhismayaasha madxafyada Hargeysa Berbera iyo maktabada Gabiley kuwaas oo laga maalgeliyay miisaaniyada dawladda ee sanadka 2019 waxa laga maalgeliyay mashruuca soo iibinta isgaarsiinta si ay awood ugu yeelato xukuumaddu maamulka tiknoolajiyadeed ee shirkadaha isgaarsiinta ee dalka kharashka qalabkaasina waxa laga bixiyay miisaaniyada qaranka sidoo kale miisaaniyada 2019 waxa laga maalgeliyay dhammaan adeegyada dawladda ay bixiso oo dhan muwaadiniintu waa muhiim inay cashuurta bixiyaan si loogu kabo jiritaanka dawladda muwaadin waad ku mahadsan tahay inaad gudatay waajibka cashuur bixinta la soco qaybaha dambe ee soo bandhigista mashaariicda laga maalgeliyay miisaaniyada muwaadin bixi cashuurta